waxaan maanta bartan idinkula wadaagi doonaa xogo muhiim ah oo ku saabsan hay'adda UNESCO. Maxaad ka taqaanaa UNESCO? Maxayse qabataa? Waxaad ku daawan doontaa muuqaalkan. Haddaba ku soo dhowow xogahan oo faahfaahsan. Hana hilmaamin inaad muuqaalka like saartid. Waxaan marka hore ku hormari doonaa waxyaabaha ay sheegato inay qabato hay'addani, balse waxaan marka dambe idinla wadaagi doonaa waxyaabo aanad ogeyn inay qabato UNESCO. Haddii aynu ka hormarno, waxaa loo soo gaabsaday hay'adda magaceeda UNESCO waa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. waana mid ka mid ah hay'adaha ay leedahay qaramada midoobay, taas oo u qaabilsan xagga waxbarashada, cilmi baarista iyo dhaqannada. Sidoo kale waa hay'adda gacanta ku haysa dhammaan manaahijta dugsiyada dunida ku oola oo dhammaan wadamada dunida ku oola. manhajyadoodu waa mid ku dhigan qaramada midoobay. hay'addan u qaabilsan ee UNESCO. hay'adda UNESCO waxaa la aasaasay 16 bishii November 1945, waxayna ka kooban tahay 195 xubnood iyo 8 isku xidha, waxaana xukuma golaha loo dhan yahay ama golaha guud iyo guddida fulinta ee qaramada midoobay. waxay qaabilsan tahay hay'adda UNESCO waxbarashada iyo cilmi baadhista. sidoo kale waxay qaabilsan tahay horumarinta dhaqamada. haddaba waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa dhaliilo badan oo ay leedahay hay'adda UNESCO. fadlan ila daawo bal dhaliilaheedana. dhaliisha koobaad ee lagu dhaliilay hay'adda UNESCO waxay tahay ma laha hal manhaj oo ay dunida oo dhan raacdo. oo dunidan aynu ku noolnahay ma jiro waddan kale la manhaj ah, oo waddan kasta isaga ayaa manhajkiisa dejiya, kadib waxaa laga diiwaangeliyaa hay'adda UNESCO. waxayna ka mid tahay guuldarrooyinka u soo hoyday hay'addani, waana mid ka mid ah dhaliilaha lagu dhaliilo hay'addani. dhaliisha labaad, horumar la'aan ka yimi xagga dhaqamada, oo ma jiro hal dhaqan ah oo horumarisay. iska daa inay horumarisa xataa dhaqamo badan ayaa dabar go'ay. dhaliisha saddexaad, manhajyada Afrika oo ah manhajyo ka liita manhajyada qaaradaha kale. oo manhajyada wadamada Afrika waa kuwa ka liita ama ka heer hooseeya dhammaan manhajyada qaaradaha kale wadamadooda, taas oo ay noogu sababeeyaan idinku dunida waad ka dambaysaan ee la soo socda. sidoo kale waxay nagu sababeeyaan inay ka dhaceen qaaradeennan dagaallo sokeeye, kuwaas oo hoos u dhigaya aqoonteena, balse waxaas waxba kama jiraan. oo waxaa la rabaa inay noqoto dhalinteennu kuwa aan lahayn aqoon aad u buuran. taasina waxay u suurtagelinaysaa inaynaan weligood gaadhin halka ay gaadheen. dhaliisha afraad, dagaalka hoose ee ay ku wada diinta Islaamka. oo hay'adda UNESCO waxay leedahay tafaftirayaal, waxayna sheegtay inay manhajyada dunida ka tirtiri doonto wax kasta oo ku saabsan argagixisnimada. waxaana ka mid ah waxyaabaha ay sheegtay inay ku saabsan tahay argagixisnimo, kana saari doonto manaahijta dunida waxa la yidhaahdo jihaadka, waana wax lagu weerarayo diinteenna suuban. waxaana idinkaga tegayaa digtoonaada, lana socda hadimooyinka iyo godadka ay inoo qodayaan gaaladu, waayo waxaa la yidhi gaal magacu doono ha sheegtee waa gaal uun. intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago, waxaanan idin leeyahay waa inooyo muuqaalkan muuqaalka xiga. alla idinkii.